qabanaya waad ogtihiin badankeyga idinkuna waxaad idinku waad ogaan doontaan cidda ilaa hadda aan wax qabanay maanta wax qaban bilaabasaa suuragal ma noqonayso marka waxaan idin leeyahay anigu bulshada Somaliland si gaar ah ayaan bulshada Somaliland si gaar ah ayay ugu suntan tahay ka dambayntayadu waayo si aad u wada ogtihiin meeshaas oo balaaya ka dhacso sida halkan ba dhibaato jirtay odayaal aakhiradooda u baqaya ayaa intay isku tageen ayay dadkii walaalaha ee balaayadu dhagaadhay ayay dhex dhigeen walaaltinimo iyo wada noolaasho marka anigu hadda waxaan ugu ordayaa aqalka sare waxaan u haystaa geedkii baan u haystaa awowgii tagi jiray marka ilmihiisu shaqada kale ka qaato ayaan u haystaa marka waxa weeye inaan la imaado talo oo geedkii baan tagaynaa sanadku waxaan u haystaa ama aqalka sare inuu geedkii yahay waxa aan idinku aad raadsada qof hadda dhashay intayada waratamasa midna maaha hadda ma bilaabano waxaad weydiisaan meelahaan joogno haddaan dibad ku noolan iyo haddaan dhulkan ku noolaanahaynba dadka maxaad ka qabateen maxaad ku tarteen iminka oo anu aan ogahay in aan meeshaan joogay dadkan aan u dhigayay aanan macallin inu ahaynin waalid inuu ahaa waxaan waalid ugu noqdaynaa aniga macallimiintii waxay soo bartay magaalada garoonka loo odhan jiray markaa iminka wajaale la yidhaaho macallimuun inima ahayn aniga waalid bay ahaayeen anna waxaan ballan qaaday qofkii aan wax barayo inaanan macallin inu ahaanin waalid u ahaado inaan Soomaalida iminka dadka inteeda dibadda ka timiday iyada inta halkan joogtaba in dhibaataysan baa meel walba joogtaa waxaad weydiisaan hadda lama bilaabayee waxaan walaalo ku nahay inaan geeridana wada oyno arooska iyo carruurta markay dhalatana wada faraxno maxaad ka soo qabatay meeshii aad joogtay dad dhibaataysan baa meel walba jooga oo mucaawino u baahan oo gargaar u baahan ma haddaan gargaarka bilaabanaa mise horaan u haynayo waa sii wadanaa habidka waxay dhahaan qaaladan muddada badan la joogay 40 sano caadooyinka ama habitisku 21 cisho ku samaysmaa haddaad isku qasabtid 21 cisho wax adiga ale haddii caado xun tahay iyo haddii caado wanaagsan tahayba ma joojin kartid marka anigu dhaqankan aan leeyahay waxa weeye in aan sadaqaysto wakhtigayga dhaqaalahayga intayga ka maarmayo oo cid saa u buuxdaa ma jirtee intaan dhaqaalaha ka maarmayo inaan sadaqadaysto marka waxaan maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay in aan maanta hor imanayo salaadiintii iyo odayaashii Somaliland oon weydiisto in ay igu ixtiraamaan isiiyaanna codkooga si aan aqalka sare u tago anna aan ballan qaado inaanaydaan ku hongoobayn anaydaan isku ciilkaambiyeynin codka aad i siiseen waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay odayaashii horeba nabadda u soo sameeyey ee dad iscunaya bili-aadmiga ka dhigay halkanna iminka waaban dhaamanaayo waan ka sii wanaagsannahay waxaan ogahay cidda aan la barotamayo oon ixtiraam badan u hayo inaan haddana waxaan jecelahay ka hela anigu oo anigu aan ummadda ugu wanaagsanahay baan rumaysanahay ayaan rumaysanahay isaguna siyaasi leeg buu rumaysan yahay markaana miisaamo oo cidda aad isleedihiin ummaddani wakhtiga adag ku jirta waayo anigu waxyaabahay keenay nin Saciid Saalax la yidhaaho gabayaa dhowr goor anagoo cabanana buu naarko Soomaalidii wax ma qabanayso madaxdii baa xumaatay balada anagoo hayna wuxuu yidhi war haddaad idinku dib u joogsateen xagga hore yaa soo maraya ama xagga hore soo gala oo ummaddan wax la qabta ama cabashada daaya cabashadii baan joojinayaa anigu halka horena soo galo oo aan talo aan ka galo waan ogahay inaan bili-aadmi ahay oo khaldami doono ilaahayna uga saamaxay haddaanan ugu talagelin laakiin khaladan ogahay geli maayo cidna ka gelin maayo odayaasha Somaliland ee nabadda iyo walaaltinimada ka soo sameeyey dhulkii aan ka imideen ogaa waxaan rumaysanahay halkanna inay ka samayn doonaan dadka Somaliland ee halkan jooga ee Soomaalimada dhisaya inay u soo saaraan in anfici doonta iyaga
dadkooga iyo dadka Soomaali oo dhan anficisa soo saaraan waxaan rajaynayaa inaan ka mid noqdo kuwaasi loo soo doortay waana mahadsantihiin